ogeysiis naxdin iyo la yaab leh dagaalkii saddexaad ee adduunka ayuu albaabkiisii furmay shirkadda weyn ee caanka ee Benjin la dhaho oo soo saarta joornaalada saxda ah ayaa beejkeeda koobaad ku soo qortay inuu dagaalkii saddexaad ee adduunka bilaabmi doono halku ka bilaabanayna ay tahay wadanka Shiinaha iyo duleedka Taiwan runtii Shiinuhu kuma qanacsana ku dhawaaqida dagaalka ba'an ee soo socda laakiin Shiinuhu wuxuu muujiyay awoodiisa iyo xeeladiisa militarinimo inuu kala dagaalami karo Mareykanka iyo xulafadiisa sidoo kale wasiirka Shiinaha ee Wanka waxa uu yiri in dagaalka ba'an ee soo socda uu noqon doono dagaal lagu baabao lagu rogmado waxa uu hadalkiisa raaciyay in ay Shiinuhu yeelan doonto awood iskaga celiso Taiwan marka la gaaro sanadaha soo socda 2525 inkastoo Shiinuhu hadda awoodin inuu Taiwan ka tirtiro khariidada caalamka si aanay taas u dhicin in ay Taiwan si diyaargarowda ana galbeedka oo ay hogaaminayso America waxaas oo aan jabaadooda arkaysan maaha mid ay soo dabaacday shirkaddan Benjin waa wax xaqiiqoyna hadalin la sameeyay ayaa rumooday taasoo loo qiyaasay inuu dagaalkii bilowma rabo saalaanta soo ahayd Shiinuhu dagaal weyn ku qaaday jawiga Taiwan sidoo kalena hawada Taiwan ay gashay 150 diyaaradood dawadaha qiimiga badan oo intaas qaata kuma eka saadaalinta ogaanshaha lagu ogaadeen dagaalkii saddexaad ee adduunka bilowmay waxyaalo kala badan oo jiraan intaas ayuu nagu yimaatay barnaamijkani inta ku kulmayna barnaamijkan lamid waxaan naga tagnaa sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale ay loobin inaad koonkan aad subscribe saartid si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xiran channelkayga Xamse Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh